ashir caalami oo ku saabsan bidcadbadeeda Soomaalida oo isna Djibouti ka socda warbixintiisa waxa ay noo haysaa Kaltuun Maxamed Cali. Djibouti waxa ka furmay fadhi heer caalamiyeed oo lagaga tashanaya qawaaniinta lagula dagaalamayo bidcadbadeedka ka qowleysanaysa xeebaha dalka Soomaaliya gacanka cadan. fadhigan oo 4 maalmood soconaya waxa uu jooga wakiilo matalaya dhowr iyo 20 dawladood iyagoo isla meel dhigaya qorshaha lagaga hortagay bidcadbadeedka iyo halista kale ee ka soo foodlay xeebahani. qorshaha fadhigan lagu qorfeynayo waxa kamid ah sidii maxkamad gaar ah loogu sameeyay lahaa dadka falalka bidcadbadeedyada lagu qabto in la baajiyo kalluumaysiga sharci darrada ee lagu hayo xeebaha dalka Soomaaliya qashinta xeebaha dalka Soomaaliya lagu shubayo iyo dadka tahriibayaasha ee badaha naftooda ku halaagaya. Djibouti waxay u ogolaatay dhul dhan 20,000 oo mitir kaare oo deegaanka Dooraale ku yaala in laga dhiso xarun lagu tababarayo dadka khibradaha u yeelanaya badbaadinta dhinaca badaha iyo deegaanka. dawladda Japan ayaa dirbiba waxa ay diibtay lacag dhan 14 malyan oo dollarka Mareykanka sida oo kale dalalka beesha dhaqaale ee qaarada Yurub waxa ay bixiyeen lacag ka badan 1 malyan oo lacagta eerooga si dhaqso ah loogu dhismo xaruntaasi tababarka caalamiga ee Djibouti laga sameynayo. xaruntaasi tababarka ee Djibouti laga dhisay waa mid heer caalamiyeed oo la jaan qaadaysa kuwa ka dhisan dalalka sida Talyaaniga iyo dalkaasi Sweden ee qaarada Yurub ku yaala iyada oo kolkaas ay u suurta gelinayso in la isweydaarsado macluumaadka iyo khibradaha ay leeyihiin xarumahaasi qadiimiga ee qaarada Yurub ay leedahay. shirkani wakiilada ka soo qayb galay waxa kale oo laga wargelinayay in la sameynayo xarun isku gudbinta wararka sirka ah oo laga dhisayo dalalka sida Yamanta, Kenya iyo Tanzania oo kale. shirkan wakiilada jooga waxa kale oo laga wargeliyay in la baneeyay dariiq isagu dhinaca nabadgelyada oo dhinaca xeebta dalka Soomaaliya gacanka cadan ku yaala kaas oo loogu baaqayo maraakiibtu inay si nabdoon u soo maraan. hasaatee waxa looga digayaa markabka dariiqaasi ka leexda inuu halis u yahay inay ku qamaamaan kooxahaasi bidcadbadeedku. wakiilada shirkani fadhida waxa ay halkaasi ka cadeeyeen in la dareemay hoos u dhac gaadiidkii dhinaca badaha iyada oo maraakiibtii jidkani maraysay xagga baddu ay haddan ka aageen iyada oo dhinac kalena caymisyada maraakiibtu ay kordhiyeen lacagaha iyaga oo sheegay in khatar xoog leh ay ka soo food leedahay xeebaha dalka Soomaaliya iyo gacanka cadan. 300 oo maraakiibta kuwa dagaalka ah ayaa dhex mushaaxaya xeebaha dalka Soomaaliya gacanka cadan kuwaas oo ay leeyihiin dawladaha sida Mareykanka, beesha dhaqaale ee qaarada Yurub, Russia, Japan iyo Shiinaha. waxa kale oo intaas u dheer iyada oo la isweydaarsanayo khibradaha xagga militariga ee dalalka degmada iyo adduunka si halkaasi loogu jilib dhigo khatarta bidcadbadeedku ay haddan ku haysto gaadiidka dhinaca badaha ee gobolkan. Kaltuun Maxamed Cali, BBC Djibouti.